akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaa barnaamijkeygii idaacadda afka Soomaaliga ee laanta Samadoon sida aanu hore idinku sheegno taxana noqon doona waxaanu caawa khadka telefoonka aanu si toos ah ugu wareysan doonaa Maxamed Cabdullaahi Tiici oo ah madaxweynaha Ximan iyo Xeeb ee gobolka Cadaado kuwaasoo dagaalo ay ka dhaxmareen maalmihii la soo dhaafay gobolkaasi kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba u keenay ummad badan oo Soomaaliya iyagu ku nool gelinka waxaan salaankaas u gaarsiinayaa ummadda caalamka degan Scandinavian-ka su-aasheedii haddii aan ku bilaabo sida tan Maxamed dagaalo baan ayaa ka dhacay gobolka aad ku sugan tahay kuwaasoo iska horimaadyo ay ku dhaxmareen sunna wa jamaaca sida la sheegay iyo groupkiina dhimasho iyo dhaawac ayaa dhacay sidee wax ku sugan yihiin iminka xaaladdu sidee tahay Maxamed bismillah xaaladdu waa degan tahay halkaada dagaalkuna wuxuu ahaa mid maaragtay weerar lagu soo qaaday shacabka Ximan iyo Xeeb oo maaragtay ama maamulka Ximan iyo Xeeb isla markaasna wuxuu ahaa daraad subax qolo sheeganaysa Mooryaan sheeganaysa ala sunna oo jamaaca ay ahaayeen oo soo qaaday dagaal deegaanka ilaahay fadligiisna maaragtay waa loogu guuleystay oo hadda waa ka baxeen deegaankii waana degan yahay ilaa dhimashaduna waa 10 qof baa la sheegay dhaawacuna waa inta waa xogaa waa dhama waa ilaa 5 madaxweyne Tiici waxa aan la soconaa ama aanu ku maqalnay warar aad bixisay adigu in aad ka maqnayd aad adigu ka baxday magaalada goormaad ku soo noqotay xageesa ku sugan tahay waqtigan xaadirka waxaan ku suganahay Cadaadaan ku suganahay waxaan ku soo noqday habeennimadii markii ahayd xilliyadii fiidkii waxaana loo baxay waxay ahayd magaalada khasaare badan gaarin laakiin ku soo noqoshadii lagu soo noqday qasaaraha la minimaaysay marka hadana alxamdulillah waa dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay halkaasi misay la eg tahay ilaa maanta waqtigan aad dib u soo noqotay haddii aad dib ugu noqotay ciidamadii iyo dadkii iska horeemadu ay dhex mareen dhimashadu waxay u badnaayeen rayidkii ku dhacay maaragtay magaalada ay ku dileen iyo dad maaragtay culimo ah oo magaalada madaxa looga toogtay waxaana markii la celceliyay dhimashadu gaaraysa 10 dhaawacuna ilaa 4-5 weeye inkastoo la qiyaasi karin oo dad la qaxay ay jiraan ayagoo dhaawaca dhici kartin nabadu sidee bay tahay iminka xaaladda deganaanshaha magaaladu sidee bay ku sugan tahay Maxamed jaal madaxweyne haddii aan ku weydiiyo xaaladdu waa degan tahay waa dadkuna waa ku soo noqnoqdeen guryahoodii waana wax maaragtay runtii laga yaabo oo laga qeybsado ummad degan oo nabad degan ismaamushay in weerar lagu qaado runtii kulay ma garan karo meesha ka imanaysa ama waxa laga rabo haddii aan ku weydiiyo su-aashan waxaa jiray soo noqoshadaadii kadib ama sida aad ii sheegtay waxaanu maqalnay warar aan sugnayn oo sheegayay inaad adigu ugu baaqday ciidanka ama soo laabashadiinii aad sheegtay in aanan dhicin wax aarsi ama dagaalo aan la qaadin xagtaa ma nooga warrami kartaa mar walba anagu falsafadana waxay ku dhisan tahay inaanan dad la weerarin laakiin istifaacu waa xaq taasaan aaminsanahay laakiin inaan dariska dadka ah weerar lagu qaadin qasaarina aan la gaarsiin qofna aan waxa uu aaminsan yahay hadday noqon lahayd caqiidadiisa hadday noqon lahayd fikirkiisa aan loo dilin waa caqliga saliimka ku dhisan maamulka Ximan waxay ku dhisan yahay laakiin xaqiiqdu waxay tahay maaragtay in dad islaam ah oo meel degan aan hadda kadib weerar ku qaadno ujeedadeenu maaha laakiin waan istifaacinaa wixii yaa weerarka bilaabay markii ugu horeysay weerarka ayagaa bilaabay asoo ayagoo sheeganaya inay yihiin runtii ahlusunna wal jamaaca inkastoon anigu aan la yaabanahay dadkaas qamriga watay oo qayiilayay oo sida qaafka daran u ekaa Mooryaanta hadday yihiin ahlusunna wal jamaaca waxaan ku ogaan waa ahlusunna wal jamaaca culamo maaragtay islaam oo diinta taqaan kole laakiin dadka socday ma ahayn dad matala magaca ay wateen hadda xilliga ahlusunna wal jamaaca wax iska bedeleen ma garan karo yihiin baad isleedahay jaal madaxweyne yihiin dadkeeda soo weeraray haddii aysan ahayn ahlusunna wal jamaaca yihiin baad isleedahay maskaxdeeda aysan gelin anigu magacay sheeganayeen waa ahayd ahlusunna wal jamaaca laakiin qaabka ay u ekaayeen ama ciidanka meesha
socday runtii dadaad koobkaaga wax ku siisato ma ahayn marka ma garan karo xilliga ahlu sunna isbedeshaan ku leeyahay waxaan ku ogaa culamo diinta taqaano sida aan ku maqlay ahlu sunna wal jamaa ma ku ogaa waxay ahaayeen laakiin dad Moryaan oo sheegtay magacaas waxaanu maqalnay arrintan lugmiyay ku lahayd isku dhacyo hore ayaa ka dhacay gobolka sidaan ognahay wax lug ama ku lahayd isku dhacyadii hore oo hore uga dhacay dalka tan maanta timi wax luga kuma lahayn isku dhacyo hadii uu dhaco waxa ku xirneed waa wax baadiyaha ku saabsanaa kuna salaysnaa daaqsinka iyo biyaha iyo waxa la midka taasna dadku dad walaalay ahaayeen oo deegaanka oo dhan waa xaliyeen waana xalin jireen laakiin tani way ka duwaneyd tan waxay ahayd sida nagu maqala in madaxda ugu sareysa ahlu sunna wal jamaa ay saxiixeen in lagu duuro deegaanka iyagoo ujeedada ay leeyihiin iyo hadafka ay leeyihiin hadda xataa weydiisan garan karin sababta loogu socday waxyaabaha ay ku munaasabadana waxa ahaa inay qabeen inay ka xoreeyaan ama sheegteen idaacadaha khawaarij inay ka xoreeyeen marka macnaha khawaarijtan waxaan u fahmay inay tahay qof degan deegaan nabada inaad maaragtay qallaasa ka ridid oo ka eridid taasay macnaheedu khawaarijta uga wadaan malayn okay maanta magaalada sida ay ku tagan tahay nabad baa ka jirta tiri wax dhibaato ah ma jirto wax wada hadal ah ama dad aad la hadashaan ama heshiisyo ama wada fadhi wax ma jiraan markay noqoto dadka dariska nala ah walaalaha ah inkastoo aan waxyaabo badan oo filayn ay ka dhacday oo maanu filayn dhuusamareeb in ciidan ku wajahan degmada Cadaado looga soo duulo meeshaas aanu filayn waa dhinacaas kale waxaan filaynaa laakiin haddana walaalaha dariska nala ah haday noqon lahayd dhuusamareeb haday noqon lahayd caabud waaq haday noqon lahayd Gaalkacyo mar walba anagu diyaar waxaan nahay inaan nabad iyo maaragtay gacan nabadeed u jeedino anagu urur ma nihin ururna ma socdino qabiilada dariska lana waa dadka aan la dhaqano deegaankana nala degan xaman iyo xeebna waa qabiil samaystay maamulkan cidna kuma duulo cidna ma dhibto cidna ma dhibo waana maamul nabadeed qabiiladana waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno qoladii nabad rabtana aan la seexano heshiisyo nabadeed isla markaasna aan maaragtay wada noolaan iyo deganaansho ku nool laakiin ururku waa ka duwan yahay waana falsafad ay wataan dad cil qaba Charles uu soo gabadana uu yahay isla markaasna loogu talagalay inuu wad lagu waxyeelayo waan gartay marka xaaladda maanta sida ay tahay maadaama ay nabad tahay dadku sidee bay dareemayaan shicibka dhankaaga iyo dhanka kale iska horyimaadada xasaasadu sidee tahay iminka dadku dhibaatada gaartay ma ka muuqataa inay doonayaan inay weeraro qaadaan ama aarsi sameeyaan dhankiina muuqataa marka labaadna meeshaan fawda kama taalo maamula u taliya shaqsiguna qoriga sintu garab gashto ma dhaqaaqi karo runtii waa la soo xiraya ciidan maamul iyo shacabka maamulku waxay ka amar qaataan maamulkaas haddii la yiraahdo maanta meeshaas aan maaragtay nabad qaadan oo nabad ay qaadanaya haddii la yiraahdo colaad aan qaadan colaad ay qaadanaya marka fawda kama jirto magaalada waa deganta shaqaduna waa socotaa ciidanka amnigana howlahoodii waa wataan hadday noqon lahayd canshuur ururintii hadday noqon lahayd maaragtay kala arrimihii caadiga ahaa oo day to day ahaa shaqadooda way iska socotaa marka kuma xirna waxa dhacay balse marka la fiirsho dhibkii ku dhacay waa ka muuqataa oo dagaalku wax sahlan ma aha ummaduna waa soo daashay xogaa muddana waa laga nastay meeshan xabad dhacday dagaal waa laga nastay qax 2 sano barkii maamulku jiray arrinkaas aad uga nasteen marka waxaad moodaa inay weli idadiiladii colaadda ay ka muuqato waan gartay marka kuwan qaybtan aad ii sheegtay Mooryaanta aad ku sheegtay ahlu sunna wal jamaa ma aha tiri dadku waxay u muuqdeen dad Mooryaan ah maxaa ku tusay inay ahaayeen dad Mooryaan oo ahlu sunna wal jamaa aysan dadka weerar ka soo qaaday anigu kulay magaca ay sheegteen kama saari karo oo waxay sheegteen ahlu sunna wal jamaa laakiin ficilka iyo qaabka ay u ekaayeen waxay ahaayeen Mooryaan qaarkood qamriga magaalada watay oo la soo galay oo la arkay ayagoo qamriga cabay maaragtay runtii aadan weel aad leedahay waxba ku siday u yihiin ujeedada lahaayeen iyo waxay kaliya inay wax kala qaybtaan oo maaragtay wixii ay gacanta ku heli karaan ku helaan isla markaasna ay wixii ay arkaan gabdho xijaaban oo kale masaajid ay irdiisa xabada ku fureen waxyaaba noocaas oo yacni runtii lagu yaqsado aad arkaysid inay tahay wax loogu talagalay maaragtay wax shakhsiyadeed oo ama kacin ama qaribaad ah ama argoosi ah la mid ah
waan gartay waxaan filayaa waxa aan kala soo xiriirayo maxamed cabdullaahi tiici jalla madaxweyne waa dalalkan Scandinavian-ka oo si toos ah caalamka intiisa kalena looga dhageysto waxa aan ku leeyahay maxaad ku oran lahayd dadka caalamka degan khaasatan kuwa Norway degan waxaad u sheegi lahayd ama hadalka ugu dambeeya aad oran lahayd ma jiraan waxaan oran lahaa inaan maaragtay dadka waad laga shaqeeyo sidii Soomaaliya caam ahaan nabad loogu heli lahaa kadibna laga shaqeeyo qaasatan sidii lagu gaari lahaa taas ay tahay in qaabka meel walba nabad ka jirto la taageero isla markaasna dadka dhib ku haya magaca ururkana wada falsafadooduna ay tahay kaliya in deegaan degan la barakiciyo oo colaad iyo maaragtay dhibaato lagu abuuro in laga digtoonaado afiya dibba looga hortagaan aaminsanahay sababta qofka jooga qurbaha iyo qofka jooga gudaha isku si way u qabanaysaa maaragtay xilkasnimada taasaan ku baraarujin lahaa marka waayahay aad baad u mahadsan tahay aad baan kugu mahad celinayaa waxaanu idin rajaynaynaa nabad iyo barwaaqo iyo heshiisyo wanaag inaad samaysataan ummadda Soomaaliyeedna xilka aad u qaadeen inaad ugu xalisaan si wanaagsan oo Soomaalinimo ay ku dheehan tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdullaahi tiici madaxweynaha gobolka Ximin iyo Xeeb ee magaalada Cadaado aad baan kugu mahad celinaynaa habeen wanaagsan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh ku soo dhawaad